inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. maalin sabti 14 bisha 10 2017 Soomaaliya ayaa gashay waqti madow markii qaraxan la aamini karin awoodiisa oo galaafaday Soomaali tir badan oo ka dhacay isgooska Soobe. gaari kuwa xamulka qaado la soo miineeyay ayuu ahaa midkii mashaqada abuuray iyadoo dawladdu ilaa hadda ay u xirtay dad tiro yar mas'uuliyadda weerarkaasi. gurmadkii ugu horeeyay ayaa ka yimid magaalada Istanbul markii dawladda Turkiga ay diyaarad daabguraysa dhaawacyada u soo dirtay Soomaaliya. wadamada caawinta fiican u geysanaya Soomaaliya kadib musiibada dhacday waxaa qayb ka ah wadamada Kenya iyo Qatar oo diyaarada gurmad ah u soo diray magaalada caasimadda ee Muqdisho kuwa oo gargaar caafimaad u keenay dadkii dhaawacyadu ay soo gaareen. ma aamini karna in kani uu ahaa qarax balse waa hubanti waxay ahayd musiibo ku dhacday Soomaaliya. maadaama aan ilmihii amashku taas ilmaha wax soo celin karo ayaan jirino maartay kullu nafsan da'iqatul mawt waa qof walba yani alxamdulillah waqti uu leeyahay oo ku dhimanayo ilmaha waa aabbo curyaana oo ka xamaalan jiray agaarka iskooska Soobe waxa uu haystay laba kamid ah caruurtiisa in badan caawin jiray waana wiil iyo gabar balse waxay kamid noqdeen dadkii ku baxay musiibadii dhacday. ilaa 4 wiil oo walaalo ayaa hal meel ku geeriyootay qoys ayna ka wada baxeen. haddaba sidee ayay ku aamini karnaa in dalkan uu yahay mid u baahan in lagu sii noolaado? xanuunka dhacdan waxay saameyn taban iyo mid guudbay ku yeelatay muslimiinta ku nool gudaha Soomaaliya gaar ahaan dadkii ka agdhawaa goobta dhacdani ka dhacday balse dunida maanta waa laga dareemayaa wixii dhacay. taalada Paris ayaa mugdi noqotay markii leerarkii laga damiyay sidoo kale buundada Turkiga ayaa laga daaray nalal buluug ah oo lagu muujinayo astaanta qaranka. madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Khayre iyo golihiisa wasiirada qaarkood iyo ciidamada ammaanka AMISOM ayaa dhiig ugu deeqay dhaawacii la geeyay isbitaalada Muqdisho balse dadka qaar waxba ma aysan ka soo qaadin ficilka ay sameeyeen madaxda Soomaaliya. eedeynta ugu badan ayaa dusha laga saaray dawladda oo dadka qaar ay ku tilmaamayaan in mas'uuliyadda xumadeedu arintan ay sababtay. wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya ayaa iska casilay xilka 2 maalin ka hor intaysan dhicin mashaqadan ama lacagdan. dawladda Mareykan ayaa isla maanta deeq daawo soo gaarsiisay dalka Soomaaliya dadka dhaawacmada ayayna ugu talagashay in lagu daaweeyo. salaamu calaykum waa gurmad waxa kula hadlaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha waa madaxweyne Farmaajo waxa uu la hadlayaa ehlada wali aan heebtooda dadkooda helin isaga oo la wadaagaya dareenkiisa mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. xil la xaqiijiyay 113 qofood inay geeriyoodeen walaalaha geeriyooda daadooda waxay u dhaxaysaa 15 ilaa 40 sano jir micna ahaan 99% dhalinyaro ay ahayd dadka dhintay. Sheekh Muqtaar Row Cali Abu Mansuur ayaa kamid ahaa dadkii la aamini waayay ee lagu dhax arkay isbitaal Madiina isagoo muujinaya halganka uu ka taagan yahay siyaasadda sii xumaanaysa Al-Shabaab. kadib 29 Abriil 2017 maalmaha munugada inta lagu jiray Axmed Maxamed Maxmuud Axmed Carab afayeenka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa kismay isagoo ku sugan ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkan. qiyaastii waa murugo xanuun badan oo faafrey badan ku yeelanaysa Soomaaliya midan waa dhacdo damiir xumo ku sameynaysa dadka qaar waa dhacdo la aamini karin taa oo xanuun badan sameysay. Cabdulle Maxamed Maxamuud Muqdisho.